waa jaamac warsame cali waxaan jiraa 25 sano waxaan ka imaaday Puntland waan ku biiray al-shabaab maxaa yeelay waxay ii sheegeen in diinta oo loo dagaalamo ay wanaagsan tahay laakiin markii aan xaqiiqsaday inaysan ku socon wada sax ah waan ka soo goostay ayaga waan isqariyay habeenkii anigoo hubkayga wata waa barigiina waxaan qaatay bas aan ku tagay magaaladeeda halkaas oo xubin bulshada ka tirsan igu soo dhaweeyay markii aan soo goostay kadib aan u imaaday bulshada waxaa la ii soo wareejiyay xarumaha dhaqan celinta dalka waxaa ii soo wareejiyay kuwa sharciga ilaaliya ee magaaladeeda kuma faraxsaneen maxaa yeelay hogaamiyaasha waxay ku nool yihiin nolol raaxo leh laakiin waxba kama galin daryeelka askartooda kuwaas oo dhammaantooda qabta shaqooyinka iyo dagaalka hadda noloshu waa okay waxaan rajaynayaa inaan bilaabo ganacsi ii gaara markaan halkan ka tago waxaan joogay Puntland waan dhaawacmay 2 jeer anigoo dagaalamaya 99% dagaalamayaashu waa dhalinyaro waxaa la ii sheegay inay tahay xarun waxbarasho oo caawisa dadka aniga oo kale si ay noloshooda dib ugu bilaabaan waana sababta aan u go'aansaday inaan halkan imaado waxaan aaminsanahay haddii dawladda ay kordhiso ololaha wacyigelinta ayadoo adeegsanaysa idaacadaha inay gaari karto dhalinyaro oo ku xayiran kooxda xaggeeda isla markaana aan garanayn sida loo soo baxsado waxaan ka dalbanayaa inay soo baxsadaan ka hor inta aysan burburin mustaqbalkooda fadlan ka faa'iideyso xarumaha dhaqan celinta dalka adigoo lagu bari doono xirfado aad ku shaqaysato haddii aad doonaysid inaad iskaga soo baxdo al-shabaab fadlan la soo xiriir nambarkan eber 6 9 23 41 eber 8